kulan wacan daawada meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan janaalka tusmada filimada iyo sidoo kale mar kale ee update kale soo kordhay kuwaas oo xiiso leh waan isdhihi karaa mar kale akhbaaraadka ay ku soo kordheen oo daawadayaashina ku taxan barta tusmada filimada waa la wadaagi kartiin meel walba oo joogtaan akhbaareedkan ku soo dhawaada kaasoo la xiriira xanta jilaash filimada soo baxay filimada goosgoosada ee kaartooyinka laga soo fasaxay iyo waxyaabaha kale aslan xiiso way leeyihiin oo aad la wadaagi kartiin daawadayaashina bartaan ku taxan waan idinkaga mahadcelinaynaa haddii jarsada muuqaaladan aad u daalactaan oo aad u daawataan warbixintan ayaa waxaan ku bilaabi doonaa waxaa la ogaaday lacagaha ay ku sameeyeen filmka beeriya jalaayaasha kasoo muuqday Farun Down Kriti Senon Abhishek Banerjee iyo sidoo kale jalaayaasha kale ee filmkaasi kaas oo shalay toolo jimcaha filmkan tiyaatar la saaray beeriya ayaa jimcadani waxaa la saaray tiyaatarada waxaana hogaamiyey ka hayeen Farun Down Kriti Senon waxaana sidoo kale filmkaasi oo ku saabsan yahay nin iska caadi ah kaas oo raba in uu duurka uu ka jiro geedaha si halkaas wada loogu dhigo asaate kadib markii uu isku bedelayo eega loo yaqaan waterfall kadib markii uu qaniinay taas oo markaas keenaysa in filmkaasi uu yahay mid oo xidigan oo marka qaar eegaas isku bedelayo filmkan ayaa director waxa ka Amar Kaushik waxaana soo saaray ka ah Jinesh Figan filmkan ay wuxuu yahay horror creature comedy ama film horror iyo shactare iyo arrimo kale iskugu jira filmkan ayaa box office-ka waxa uu ka noqday mid si hufan kaga furmay asigoo daawadayaal fiican helay waxaana markaan ay dadka indhaha la raacayaan filmkan ee bandhigyada oo sameyn karo maalmaha kale ee filmkaasi lacag uu ka keeni karo qaybta box office-ka asigoo laga dhow sugi doono maanta iyo wixii ka dambeeyaba haddaba aan isla eegna filmkaasi iyo jalaayaasha kasoo muuqday lacaga ay ku qaateen doorarkaas ee filmkaasi kaga soo muuqdeen ee beeriya waxaan ku bilaabi doonaa jalaaga filmkaasi hogaaminayo ee Farun Down ayaa waxa uu ku dheelayaa doorkiisa filmkan ee Baskar kaas oo naqanayo eega loo yaqaan Wolfer wararka ee qorta warbaahinta blive.com ayaa waxa uu sheegay in jalaagan lagu siiyay filmkan 7 koror si filmkaasi oo uu soo muuqdo ama filmkaasi oo uu sameeyo liiska labaad waxaa ku jirta Kriti Senon atirshada Kriti Senon ayaa doorkeeda filmka hogaaminta lahayd waxaana filmkaasi ay ku lahayd door muhiim ah wararka waxay sheegayaan in atirshadan filmkaasi ku qaadatay lacag gaaraysa 4 koror liiska sidoo kale waxaa ku jira Abhishek Banerjee kaas oo sidoo kale kasoo muuqda filmka Stree sidoo lamida doorkiisa filmka Gupta ayaa wuxuu filmkan ku jilay inuu yahay Farun Down ilma adeerkiisa wararka waxay sheegayaan in jalaagan lacag ahaan loo siiyay 45 leg inuu filmkaasi uu ku sameeyo liiska sidoo kale waxaa ku jira Deepak Dobriyal doorkiisa filmka Raju Mishra ee filmka beeriya ayaa waxaa la sheegay in jalaagan loo soo jeeday in lacag ahaan uu qaato 1 koror taas oo filmkaasi uu ku sameeyay liiska sidoo kale waxaa ku jiro jilaaga kale ee Bali Kabak doorkiisa filmka Gowin ee filmka beeriya kaas oo ku jilaya saaxiibka Farun Down ee Baskar ayaa waxaa lacag ahaan loo siiyay 20 leg sidoo filmkaasi oo doorkiisa uu kaga dhabeeyo filmkan beeriya ayaa box office-ka maalintii jimcaha la saaray asagoo sidoo kale filmkaasi lacag laga filinay lacag ka hoosa ka keenay maalintii koowaad filmka ayaana waxa uu keen lacag gaaraysa 6.75 koror wuxuuna sida qortay shabakada box office India waxaana ka dhigan tahay filmkaasi in uu lacag sidaas u fiican aan keenin sidoo kale filmada marka laga baxbo bandhaabin wuxuu noqday filmka 14aad kaas oo maalintii koowaad uu كان لعجاس 6.75 كرور كلي waxaa ka hoosay filmka Ekfleritanis kaas oo ku furmay 6.72 كرور filmkan ayaa markaan waxa laga dhowr sugi doonaa haduu kor ka codsamay karo maalmihiisa sabdida iyo xadaba mas'ala eegi doona filmadan in lacagaha kale oo ka soo kordhay lacagihiisa oo ka keenay qaybaha box office-ka warbixintana intaan ku soo xirina kaasaan ku eegaynay jalaayaasha filmka beeriya iyo lacagaha ay ku qaateen doorarkooda filmkaasi iyagoo sidoo kale lacag waaliyaha lagu siiyay hadda warbixintan ka shaqeeya noo saar sidoo badan u gaaro sidoo kale hadda ka shaqeeyna asxaabtina wadaaga oo kuma sintiin alaaba sida muuqaaladan aad u daawataan oo noo dhiirigelisan kan kiis xigana nabadgelyo